balastiga ah ay noolahaas u geystaan. When we find them, they are either already dead or are on the verge of that. Marka aan aragno noolahaas ama way dhinteenba ama way dhiman rabaan. Marka aan kala jeexnana bacaha tirada badan ee ku jira wax lagu tilmaamo way adag tahay. Mararka qaarna waxaa ku jira boqolaal baca ah oo noocyo kala duwan iyo cabir kala duwan leh. Inta badan bacahaasi waa kuwa afaysan waxaana ku jira waxyaabo caloosha iyo mindhicirada daloolinaya. Like ulcers or perforation. Maanta ayaa ah maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashooyinka baarlamaan iyo kuwa madaxtinimo ee dalka Turkiga oo bilaabanaysa berri oo Axad ah. Doorashooyinkan ayaa ah kuwa wakhtigoodii laga soo horumariyay. Warfidyeenada ayaa sheegaya in madaxweyne Erdogan oo wajahayo loolan adag oo uga imaanaya mucaaradka oo midaysan. Mareykanka ayaa hakiyay 2 dhoolatus military oo kale oo uu la samayn lahaa Kuuriyada Koonfureed si uu isugu dayo in Kuuriyada Koonfureed uu ka dhaadhiciyo in ay faraha ka qaado hubkeeda nukleerka. Horaantii toddobaadkan xukuumadaha Washington iyo Seoul waxa ay baajiyeen dhoolatus ballaaran oo dhici lahaa bisha August ee sanadkan. warkiina waa naga intaas Catosh. Axmed aad baad u mahadsantahay. Ethiopia caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa waxaa ka dhacay qarax lala eegtay dibadbax ay maanta caasimaddu ka dhigayeen taageerayaasha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. waxaa jira dhaawac 100 ku dhow waxaana qaraxa lagu soo beegay xilli uu ra'iisul wasaaruhu goobta yimid uuna hadalka bilaabay. jawiguna sidan ayuu ahaa markuu qaraxa dhacayay. Cabdirasaaq qaraxan waxa ugu dambeeyay hadalka komishanka booliska maamulka magaalada Addis Ababa Birna Kasa wuxuuna sheegay hadal yar oo kooban oo ugu talagalay inay shacabku maqlaan ayuu ahaa si ay ku qaadsadaan booliska iyo laamaha amniga iyo shacabku. wuxuuna sheegay inuu waxba qaban karin haddii ayna shacabku ayna waxba qabanin. intaa wuxuu ku daray in dhaawaca ay yihiin 100 qof ku dhow wararkii ugu horreeyay ay sheegayeen ayuu isaguna ka daba maray oo dadkan inay 100 qof ku dhow yihiin. marka arrintu hadda dirowsigeeda adiyada hadda wax badan ma joogo oo waa la kala tagay guryihiiba mar hore lagu noqday. Cabdinaasir oo marka bal qaraxa sidoo u dhacay sharaxaad naga sii. 3 saac iyo 10 daqiiqo ayuu qaraxani dhacay. ra'iisul wasaaruhu saado warqadii isugu laabay uu fadhiistay koobkii ayuu dhex qabsaday. mar markii koobkii uu caday biyaha dhulka uu dhigay ayuu qaraxani dhacay. masaafo waxoogaa ka durugsan bay ahayd. marka dad badan oo u dhawaa ayaa dareemin oo ra'iisul wasaaraha hortiisa iyo hadalkiisa uu cadinayo fiirisnaa. marka dhibaatadani waxay ka timid inta ugu badan dalkii la tuuray sida hadda wararka hordhici sheegayaan meena ka imanin waxay ka timid dadkii oo jeeday waxaa loo maleynaya dadkan inay maanta ay noqon karaan 2 milyan oo ruux laakiin way ka bateen oo ilaa 4 milyan ayaa hadda la xaqiijinayaa. qiyaasta ugu dhow ee hadda la qiyaasay ilaa 4 milyan oo qof ayaa la qiyaasayaa inay dadkan ahaayeen. marka ra'iisul wasaaruhu shalay wuxuu ka sii digayay in carruurta la geeyo garoonka weyn Abiyood laakiin dadku ma yeelin carruurtii oo dhan degeeyeen waana arrinta hadda ugu xanuunka badan. dadkan dhaawacmaha intooda badan waxaa la sheegayaa inay yihiin carruurta yaryarka ah. marka arrintu saas u dhacday. ra'iisul wasaaruhu aad arrintan uu ka hadlay hadal yar oo kooban ayuu kaga hadlay isagoo si uu garoonka kaga yimid iyo dharkii uu qabay qaba ayuu xafiiskiisa tegay isla markiiba wuxuuna u sheegay dadkan inay yihiin dad yar oo gacan ku tirta. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayuu ahaa dhegaystayaal raalli naga ahaada. haddaba siduu Cabdinaasir sheegay ra'iisul wasaaraha markuu xafiiskiisa tegay ayuu dadka isla hadlay. hadalkan ayaana ka mid ahaa. ይህ ቀን ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ inkasta oo ay maanta ahayd maalin dadka reer Itoobiya ay sidii roobka uu jaceelkoodu u soo daay haddana waxa jira xoogag aanan sidaas rabin waxayna la yimaadeen sifooyin ay qalqal ku abuurayaan dad ayay laayeen dhiig ayay qubeen mana hilmaami doono mise aysan gaarin ujeedkooda. maanta waa maalin jacayl nabad iyo waliba midnimo. waxaan idin xaqiijinayaa inaanan hakan doonin dadka doonaya in ay namajaxaabiyaan. waxaan idin sheegayaa shalayna maadan guulaysan maantana maadan guulaysan berrina guulaysan maysaan. ዛሬ አልተሳካላችሁም ነገም አይሳካላችሁም። kaasina waxa uu ahaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo cambaareeyay falkii qarax ahaa ee maanta Addis Ababa ka dhacay. aan Facebook u galo Ilhaan Cumar Gaalkacyo ay joogtaa waxay tiri qaraxa ka dhacay Addis Ababa waxaan u arkaa mid lagu carqaladeynayo horumarka ballaaran ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu gaarsiiyay dalkaasi. runtii qaraxa saaka fagaaraha isugu soo baxay dadkii
waa mid muujinaya in weli ay jiraan dad ka soo horjeeda ra'iisul wasaaraha maxamed cawil axmed boosaasuu joogaasna wuxuu yidhi qaraxii saaka ka dhacay addis ababa waa mid keenaya argagax shacabka etoobiyana niyajab ku ah maadaama uu ra'iisul wasaaruhu qaaday horumar xowli ku socda waa hagaag haatanna hargeysa waxaa xarunta jaamacadda hargeysa lagu soo gebagabeeyey kulmi cilmi baaris caafimaad ku saabsan oo ay ka qayb galeen jaamacada soomaaliyeed iyo kuwa dalka sweden ka yimid kulankan oo dhowr maalmood socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay daraasado soo socday muddo 2 sano ah oo ay soo diyaariyeen macallimiinta kulliyadda caafimaadka ee jaamacadahaasi wariyaha BBC da hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa haddaba wuxuu doodan gaaban u qabtay 2 ka mid ah macallimiintii jaamacadaha Soomaalida ee ka soo jeeday daraasadan caafimaad kulankaasi Dr. Jamiila أحمد آدن أو كسرت جامعة بريغ أفريقيا بوتلان إيا دكتور أيان أحمد أو كمد هرمود هيجين ككلية عافمات كجامعة هرقيسة أنا ذكور رجيو أحمد سعيد عقا shirkan wuxuu ku saabsan yahay cilmi baaris oo soo socday ilaa muddo ilaa 2016 jaamacadood oo Soomaaliya ayaa isugu yimid halkan marka iskaashi ka dhaxeeya 5 jaamacadood oo Swedish iyo 6 jaamacad ayaa isku kaashaday marka xubno ka tirsan macallimiinta jaamacadahaasi ayaa loo tababarayay in kor loo qaado awood ay u leeyihiin cilmi baaris sameeyaan marka jaamacadaha Soomaalida ka soo qayb galay waa kuwee jaamacaduhu waxay u kala qaybsamaan jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Kalkacyo ee ku taala adiga qaybta Galmudug iyo jaamacad Bustal yiraahdo Puntland University Science and Technology oo iyaduna ka tirsan Kalkacyo iyo jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso ku taala iyo jaamacadda Hargeysa iyo Boorame mid ku taala yiraahdo jaamacadda Amuud wagaag in ayaan le shirkan bal iyo war xagga caafimaadka ku saabsan maxaa caafimaad laga hadlaya waxaana tay hormuud ku xigeenka kulliyadda caafimaadka dabcan ee Hargeysa runtii aad badan ma Axmed Saciid shirkan waa shir aad iyo aad muhiim u ah oo aan ku faraxsanahay ka jaamacadda Hargeysa ahaan inaan casuumaadaas u fidino jaamacadaha Soomaalida dhamaantood iyo jaamacadaha Sweden ee isu tagay shirkan waxa kor loogu qaadayaa shaqaalaha ama bahda caafimaadka ee ka tirsan kulliyadda caafimaadka jaamacadahaasi inta qaabka ay u sameeyaan cilmi baarisada ayaa kor loogu qaadayaa wuxuu soconayay shirkan muddo 2 sanadood ah professor ka imanaya jaamacadaha dalka Sweden oo ay ka mid yihiin Umia Dalarna iyo 4 jaamacadood oo kale waa kuwa ka bixinayaan ka shirkan la joogo hadlaya marka cilmi baarista lagu soo bandhigay ee paperiska la jeedinayo maxaa kamid ah daraasaadkaas runtii daraasado cajiib ah meesha ka soo baxay oo waxtar badan u leh ma artay iyadoo laga hadlayo baahiyaha faraha badan ee kala duwan ee caafimaadka waxa kamid ah chatka waxa kamid ah wax laga hadlayay dawooyinka quality-ga leedahay tayada leeyihiin baa kamid laga hadlayay waxa kamid ah carruurta yar ee dhalaanka dhimanaya dhibaatooyin ku dhacay waxyaabaha sababa kamid ah waxa kamid ah umul raaca hooyooyinka waxaan sameeynay cilmi baaris gaaraysa ilaa 14 research oo kala duwan 14 research waxay soconayeen 2 sanadood waxaan ku sheegay in imika soo gabagabowday dhawaana aan rajeynayno in la soo bandhigi doono si cilmi baaris Jamiila adigu haween baa tahay in bal ka waran waxay u badan tahay lagu leeyahay xaggan wad aragtay Soomaalida deegaanadeeda umul raaca ku badan waxa ku badan cudurradan ku dhaca iyo dumarka iyo carruurta inta sano gaarin bal ka waran arintaasi daraasadaha ku saabsan aniga khaasatan mawduuca aan cilmi baarista ku sameeyay wuxuu ku saabsanaa umul raaca run ahaantii aad buu masawirka iga soo baxay u liitaa aad bay dayac سائد هبايا bulshadeena ay ku jirtaa oo la xiriira tayada maaragtay ee helayaan iyo xataa iyagu waxyaabo ku qaseeya maaragtay bulshadeena laftirkooda fikradaha ay ka qabaan inaysan raadsanaynin si dhaqso ah ayna u raadsanaynin markay caafimaad u baahan yihiin marka qofkii dumar oo laga yaabo carruurtii oo laga yaabo xanuunka ku fogaaday tagayaan meesha cistaan waxayba u dhimanaysaa cadabada ay maanaha si sahlan loo xalin karo sida dhiig baxo kale ayaa u badan gabdhaha ay ku umul raacayaan aklimsiya soo booday iyadoo maaragtay markii horeba aan la xiriirin wax caafimaad oo aan ogaan xaaladeedu inay khatar tahay markaas aad guriga ku dhalaysaa ka bacdina waa maaragtay kalamsiya ku soo boodaysa waa dhimanaysa marka waxyaabo badan ay u badan yihiin oo wax laga qaban karo oo yacni laga hortagi karo haddii wacyigelis la helo Jamiila in gabagabadii su'aal bad weydiinaya labadiinaba in adan Puntland bad ka socotaa jaamacad ku taala Jamiila in ayaan lana Somaliland xaggana wadarka saayo dagaal ka socda bal ka war xaggana idinka arkood karo jaamacadii cilmi baaris ka wadataano anagu horta markayga hore waxaan ahay academicians dad waxaan jaamacadaha ka shaqeeya oo macallimiinka maaragtay dad wax bartay baan waxa siyaasad weeye waxaanu ma ahana dad walaalaan nahay haddana maaragtay intaan korsadan ku jirno xiriir waxaan naga beermay dhaxdayada aan weligiisba dhamaanaynba walaalaan
aan saa ku nahay aniga ayaan leh baladna runtii waa sida Samiir sheegtay wax weeyaan waa dad walaalaaba oo nahay ummad Soomaali baa nahay Soomaali isku dhiig isku dhaqan waxaan ku kala duwanahay oo maartay xagga Soomaalinimada ay ma jirto runtii waxay dareemaan marka Hargeysa yimaadaan in magaaladooda joogaan ma tagtay adiguna xagga mar baan tagay si fiican bay soo dhaweeyeen garow aan tagay way soo dhaweeyeen way qaabileen way qabsadeen marka ka fog siyaasadda baad leedahay ka isma dhaw shaqas kuma laha waayo waa bax caafimaad runtii farxad weyn bayna noo tahay waana si wadoona xiriirkayga aad baad u mahadsantihiin أحمد سعيد يقول ما سنيه دوداسنا نوحو دحديغا دكتور أيان أحمد إيا جميلة أحمد آذن أو ككل السعودية جامعة بريغ أفريكا بوتلان إيا جامعة عافيمات كأي هرقيسة BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba hagaag sheeko xiisa laha noo soo socota oo ku saabsan wiil dhalinyaro arday ah oo markuu buugaagta wax ku qorayo gadaal u qoraya waa cajiib balse haatan dalka Turkiga maanta ayaa maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada dalka Turkiga ka hor inta aan biri oo ahad ah loo dareerin doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka waxa la saadaalinayaa in doorashadani noqon doonto mid la isugu soo dhawaado xagga codadka oo waxa suurtagal ah in madaxweyne Erdogan lagu qasbo inuu wareeg labaad la galo qofka la tartamaya wariyaha BBC da Macluwin ayaa warbixintan ka soo diray waa kan Xasan Cali Geelo soo jeediya bishii Abriil aynu soo dhaafnay ayuu madaxweyne Erdogan ku dhawaaqay in dalka ay ka dhacayso doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay arrintaa oo lama filaan ku noqotay kooxaha mucaaradka oo aan iyagu horay isu sii diyaarin waxayna u muuqatay in madaxweynaha awoodda badan ee Turkiga uu diyaar u ahaa in si fudud ay guusha ku raacdo balse muddada 2 bilood ahayd ayaa ah waqti aad u badan marka la eego siyaasadda dalka Turkiga mucaaradka kala daadsan ee dalkaasi ayaa u midoobay doorashada baarlamaanka si xisbiga madaxweyne Erdogan ee AK Party uusan u helin aqlabiyad ku filan sidoo kale Muharram Inca oo ah xildhibaan u janjeera bidixda dhexe ayaa aad u sii xoojiyay ololihiisa uu ku doonayo inuu noqdo ninkii is hortaagi lahaa Erdogan ugu yaraanna ku khasbi lahaa in la aado weji labaad oo doorasho ah oo aan lagu kala bixin tan berri oo xadda dhici doonta isu soo baxyada siyaasadeed ee ugu dambeeya ayaa dhacaya maanta waxaana musharaxiinta inta badan ololahooda ay ku qabsanayaan gudaha magaalada Istanbul sida caadiga ahayd dadka codbixiyaasha ahi ayaa weli u badan dhanka Erdogan balse markii ugu horreysay muddo 15 sano ah mucaaradka dalkaasi ayaa u muuqda mid leh rajo wanaagsan وهاجاك حسن علي قال لا أدبو مهسيهاي هاتنا شيكة حيسالة عبد الناصر إلى فضية وشيكة ولي وموقالهان أن بقي إن فيسبوك أسوق لنا وأرضي كيان oo markuu wax qorayo halkii uu kor ka bilaabi lahaa hoos ka ajiid abdiyo bal nooga dhac warkan عطوش ما سنتها sheekadani waa sheeko la yaab leh jaraa'idka iyo meel kasta ku soo baxday bogga Facebook ee BBC dana ku jirta iyadoo muuqaal ah ninkani marka uu wax qorayo buu Daniel ayaa la yiraahdaa buugga gadaal buu ka bilaabaa haye halkii uu hor ka soo bilaabi lahaa buugga gees iyo waxaas ma ah gadaal buu ka bilaabaya buugga meesha uu ku dambeeyo ugu dhamaado ka bilaabaya qoraalka ilaa meesha ugu sare uu geeyo laakiin taa oo kaliya ma aha marka uu akhrinayana gadis uu akhriyaa fartina waa sideedii waxba isma bedelay farta hadii gadaal uu qabto waa akhrin karaa ajiib gadaal buu ka soo bilaabay laakiin ninkan halka loo hayo waxa waaye kombiyuutarada iyo qalabka la isticmaalo hadda telefoonada ay ka mid yihiin si fiican buu wax ugu qori karaa oo ma baahna inuu gadaal ka soo bilaabo maxaa ku kalifay leeyahay abdiyo ninkan waxan ilaa yaraantiisa dugsiga sare markuu dhiganayay wiilkan wuxuu sheegay inuu dabeecadani lahaa waxaana jira dabcan waxyaabo badan oo documentary iyo filmaan laga sameeyay oo ku saabsan xanuuno dadka keenaya inuu bedelmo farqoraalodkooda hase yeeshee ninkani wax lagu sheega ma laha uu la qabsaday ilaa heer jaamacadeed haddana qaanuunku dhigtaa gebiba sideeda abdiyo adigu farbaradkaagi bal wax ma ka xasuusta marka iskuulka dhiganaysay sida ninkan mad gadaal ka bilaabi jirtay adna runtii dad badan oo waxaan aqaanaa gacanta bidix wax ku qora oo gurayl la yiraahdo xitaa kubadda ku tuura furfurdada iyo dhagxaanta ku tuura waxaas oo dhan laakiin qof gadaal ka soo bilaabaya qoraalka talowsho farbaradkaagina waqtiga kugu qaadatay aad iyo aad fartaada goormay fiicnaatay galaaska afraad shanaad lixaad mise كواد مكان هوا أنا أوكي فرت واي فعلا أنا وحصل على استادوك سجى هو صدق هيدو باله فصل كل حاد مركان جاري تأجأ مركان جاري مسألة فحمالة الفحمالة القرآن حقيقة وهيك هدوء كشك سنتنا أدب ما سنت عبديو kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaal bare
warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com وهاجاك ciyaarihii haddaan u galno koobkii adduunka socda xalay waxaa wada ciyaaray Nigeria iyo Iceland Nigeria dhagaha ka garaacday Iceland oo 2-0 ay ku qusisay sidoo kale Brazil way badiso Costa Rica ayay xaqdo 2-0 ay kaga adkaatay ciyaartii xiisaha lahayd waxay ahayd Serbia iyo Switzerland goolka waa looga hormaray hal bay keensatay Serbia balse maxaa ku dhacay Serbia ardaadiqaha laga dhigo 2-1 ayaa lagu xaaqay waa Serbia koobka adduunkana xiisahaas ayuu leeyahay caawa waxaa dhacaya South Korea iyo waxaa wada ciyaaraya Mexico Jarmalka iyo Sweden way wada ciyaarayaan waa ciyaarta isha sidoo weyn loogu hayo Jarmalka koobkan loo tartamayo haystaa waana laga soo badiyay horey baa laga soo badiyay sidoo kale Belgium iyo Tunisia ayaa iyagana is arkaya haddaan fikirka dhageystayaasha qodobkaasi u gudbo ugaas Xasan Bashiir ayaa wuxuu yiri galkacyan jooga waxa uu yiri koobka adduunka halka uu marayo waa mid xambaarsan xamaasad anigu se kooxdii Masar ee aan taageerayay waa laga adkaaday ayuu yiri waa hagaag wili fikirkiina Facebooka waad ku soo dhiiban kartaan waana ku maasatiin inaad si toos ah noo dhageysanaysaan haatana ku soo dhawaada barnaamijkeeni baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdulaahi Jaamac Samiiro mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay hooyo Waliye Cali Mataan waxa ay baafinaysaa wiilkeeda Jaabir Ibraahim Qeere midabkiisu waa madow waxa uuna la yahay ilkaha kore iyo kuwa hoose sidoo kale waxa uu xirnaa shaati cadaan ah iyo sarwaal madow ah haddaba cid allaalay cidii aragtaa waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay soo gaarsiiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afgooye amaba telefoonka hooyo Waliye Cali Mataan 2526 sidoo kale hooyo Aamina Xasan Xuseen waxay baafinaysaa aadan siidow oo ah 8 jir waxa uu watay markii ugu wardambeysay shaati jaalo ah iyo surwaal guduudan sidoo kale dhinaca midig gacanta wuxuu ku lahaa nabar hore haddaba haddii ay jirto cid aragtay ama maqashay fadlan waxaa si naxariis looga codsanayaa inay geeyaan xafiiska baafinta bisha cas ee magaalada Muqdisho ama taleefanka Iberli xal 7889152 Axmed Yuusuf Cilmi oo jooga Booramo waxa uu baafinayaa Jaamac Yuusuf Cilmi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sacuudi Arabiya sanadii 2009 haddaba haddii uu maqlayo Jaamac Yuusuf Cilmi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Axmed Yuusuf Cilmi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama Raaxa Maxamed Heybe oo joogta Burco waxay baafinaysaa Nuura Maxamed Heybe waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen haddaba haddii ay maqlayso Nuura Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Raaxa Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco maxamed cabdi culuw oo jooga Booramo waxa uu baafinayaa Muuse cabdi culuw waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo Muuse cabdi culuw amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdi culuw iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Booramo Shamis Yuusuf Xasan oo joogta Burco waxay baafinaysaa Sahra Yuusuf Xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan 2004 haddaba haddii ay maqlayso Sahra amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Shamis Yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco Xasan Wali Ibraahim Xuseen oo jooga Booramo waxa uu baafinayaa Colaad Ibraahim Xuseen waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 1993 haddaba haddii uu maqlayo Colaad Ibraahim Xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xasan Wali Ibraahim Xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama Rooda Yaasiin Cawad oo joogto Booramo waxay baafinaysaa Bushra Yaasiin Cawad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya haddaba haddii ay maqlayso Bushra Yaasiin amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Rooda Yaasiin ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Jibriil Axmed Ayaanle oo jooga Booramo waxa uu baafinayaa Mako Axmed Ayaanle
waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso Maka Axmed Ayaanle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Jibriil Axmed Ayaanle iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama. hibo axmed nuur oo joogto burco waxay baafinaysaa nasre axmed nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2002. haddaba haddii ayna maqlayso nasre axmed nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hibo axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco. maxamed aadan cali oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa jaamac maxamed aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo jaamac maxamed aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed aadan cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama. saado rooble jaamac oo joogto Boorama waxay baafinaysaa hibaaq rooble waxaa ugu wardambeysay 2008. haddaba haddii ayna maqlayso hibaaq rooble amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saado rooble iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco. maryan ibraahim yuusuf oo joogta Hargeysa waxa ay baafinaysaa shukri dhuux xasan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2012. haddaba haddii ayna maqlayso shukri dhuux xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maryan ibraahim yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Hargeysa. khaliif ibraahim cabdi oo jooga Sool waxa uu baafinayaa cumar ibraahim cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2016. haddaba haddii uuna maqlayo cumar ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo khaliif ibraahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Sool. cabdi cabdulaahi aare oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa saalax cabdulaahi aare waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo saalax cabdulaahi aare amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdi cabdulaahi aare iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama. xaawo nuur xirsi oo joogto Sool waxay baafinaysaa Faadumo nuur xirsi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2013. haddaba haddii ayna maqlayso xaawo nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faadumo nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Laascaanood. ibraahim cabdirasaaq oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa nuurudiin cabdirasaaq waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2011. haddaba haddii uuna maqlayo nuurudiin cabdirasaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ibraahim cabdirasaaq iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama. qadro ibraahim xasan oo joogto Laascaanood waxay baafinaysaa aamine ibraahim xasan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2014. haddaba haddii ayna maqlayso aamine ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadro ibraahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Laascaanood. xasan saciid faliye oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa mawlid xasan saciid waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2006. haddaba haddii uuna maqlayo mawlid xasan saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xasan saciid faliye iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama. yaasiin xasan ismaaciil oo jooga magaalada Nairobi waxa uu baafinayaa nimco yaasiin xasan aamine yaasiin xasan iyo cibaado cabdi jaamac waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho 2016. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo yaasiin xasan ismaaciil iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi. Zainab cabdi rooble oo joogta Boorama waxa ay baafinaysaa aamine aadan warfaa waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2010. haddaba haddii ayna maqlayso aamine aadan warfaa amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Zainab cabdi rooble iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama. farduuso xuseen rawax oo joogto xerada qaxootiga ee Kaakum waxay baafinaysaa muslimo maxamed iyo farxiyo ibraahim waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho 2008. haddaba haddii ayna maqlayaan muslimo iyo farxiyo amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo farduuso xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Kaakum.
maryan cabdi yuunis oo joogta booramo waxa ay baafinaysaa muuse cabdi yuunis waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yeman sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo muuse cabdi yuunis amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maryan cabdi yuunis iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay booramo maxamed cawad jalam oo jooga garowe waxa uu baafinayaa dadkii kale ah aamine cawad cabdi kaltuun cawad cabdi iyo faadumo axmed jaamac dhammaan dadkaas waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab 2011 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo axmed cawad jalam iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe aamine aadan axmed oo joogta booramo waxa ay baafinaysaa mustafa axmed muumin waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka liibiya sanadii 2012 haddaba haddii uuna maqlayo mustafa axmed muumin amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo aamine aadan axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay booramo maxamed nuur faarax oo jooga booramo waxa uu baafinayaa cali axmed nuur waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2015 haddaba haddii uuna maqlayo cali axmed faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed nuur faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay booramo mawliid cabdi tubeec oo jooga booramo waxa uu baafinayaa safiya cabdi tubeec waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yeman sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso safiyo cabdi tubeec amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mawliid cabdi tubeec iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay booramo baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay nuur cusmaan diiriye oo jooga booramo waxa uu baafinayaa maryan cusmaan diiriye waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan liibiya 2010 haddaba haddii ayna maqlayso maryan cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuur cusmaan diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay booramo baafintiina maanta waa naga intaas way mahadsan yihiin asxaabtii baafinta gebagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay qodobadii ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa qarax addis ababa ka dhacay ayaa la sheegayaa dad 100 gaaraya inay ku dhammaadeen waxaa sidoo kale goobtaasi joogay ra-iisul wasaare abiy axmed iyadoo boqolaal taageerayaasha ra-iisul wasaaraha ah ay maanta fagaaraha weyn ee bartamaha addis ababa ku yaalla isugu soo baxeen si ay u taageeraan ficiladiisii iyo weliba siyaasadda uu dalka ku hagayo idaacaddii waa naga intaa waxaa soo saartay firdowso aniguna catoosh baan ahay tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahdii b b c oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo